habeen wanaagsan daawadayaal waa volleyball iyo warbixinta caawa oo aan ku eegayno caalamka oo inoo qiray guul qarannimo waana markii la oran jiray ninkii kala sooc lahow ninkii kala saar lahow aday taladii ku seegto sidaad moodaysa maahe war hooy Soomaali baa leh oo waa Soomaaliya oo awood buuxda u heshay shisheeyaha in ay diidi karto wakiilada ama safiirada aysan danta dalkeenna ka arkin xogta safiiryo la eryayo ama la burinayo waqtiyada soo aadan caalamka oo inoo qiray dawladnimo cadowga Soomaaliya oo ilinta ka qubanayso markii ay waayeen wadadii ay dalkeenna ku hagardaamayn lahaayeen tilaabadii horay loo qaaday ee dawladnimo qaabka ay dawladda Soomaaliya u diiday wakiilkii la soo diray ee Uhuru saaxiibka la ahaa iyo go'aankii shalay ee Soomaaliya ku diiday warkii midowga Afrika xogta siyaasad culus oo arrimaha dibadda ah dawlado waaweyn oo qiray in Soomaaliya aysan ku meel gaar ahayn oo ay cod buuxa leedahay iyo kala shaki ka taagan xalane ayaan ku eegaynaa warbixintan volleyball balse saaxiibayaal like saara muuqaalkan siina sheer gareeya si dadka oo dhan u helaan waa hagaag aan ku horrayne dawladda Soomaaliya ayaa gaartay saacadihii la soo dhaafay guul qarannimo oo muhiim ah dalkeenna iyo dadkeenna oo dhan muxaafad iyo mucaarad waayo waa Soomaaliya oo taladeeda iyo go'aanadeeda arrimaha dibadda noqdeen kuwa aan war laga soo celin karin yacni tig lagama daba hadlaan xog naga soo gaartay xafiiska Soomaaliya ee New York xarunta qaramada midoobay ayaa sheegaysa in 35 dawladood ay warqad ku cadeeyeen in Soomaaliya ay u qirayaan awoodda iyo madax bannaanida go'aanada arrimaha dibadda sida safiir eryida iyo diidmada wakiilo loo soo diro iyo sidoo kale ka fiirsashada la macaamilka dawladaha xogtan waxay imaanaysaa iyadoo bilooyin ka hor uu madaxweynihii hore ee Ghana John Mahama warqad uu qoray gudoomiyaha guddiga midowga Afrika uga laabtay aqbalaadiisii ahayd inuu noqdo ergeyga gaarka ee midowga Afrika ee xal u helidda ismariwaaga doorashada Soomaaliya isaga oo sababta ku sheegay diidmada dawladda federaalka iyadoo wali dawladda Soomaaliya oo shalay diiday warbeenaad ay midowga Afrika soo saareen inkasta oo ay jirto qoraal ay qaar ka mid ah wakiilada xalane jooga arrinta diidmada ku cambaareeyeen ayaa haddana waxaa la leeyahay isha lagama laaban karo sida uu shaqeeyay go'aanka dawladda Soomaaliya ay ku diiday John Mahama oo la og yahay in uu shirko iyo saaxiib dhow la yahay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo waayahan Soomaaliya qaladaad badan ka galayay dawladaha badan ee cadeeyay in Soomaaliya ay xaq u leedahay ogolaansho iyo diidmo oo ay tahay dawlad buuxda waxa durbaba ka xanaaqay oo aad uga naxay dawlado kale oo yar muddooyinkanna cadow si hoose u beegsada ku ahaa danaha shacabka Soomaaliyeed sidaasi waxaa yiri diblomaasi sare oo wasaaradda arrimaha dalkeenna ka tirsan dawladaha arrintan guusha ka naxay waxaa lagu eedeeyaa in ay nagu haystaan baddeenna iyo khayraadka kale ee dhulkeenna hooyo kuwaas oo isku dayayay waayihii dambe in ay dadkeenna gaar ahaan madaxda iyo siyaasiyiinta kala qaybiyaan balse dantaa u run sheegtay oo waxa ay noqotay sidaad moodaysa maahee war hooy Soomaali baa leh u sheer gareeya warbixintan muxaafad iyo mucaarad si guusha qarannimo loogu wada nagaado marka aan eegno xogta safiiro ay dawladda ka fakarayso in la eriyo iyo kala shakiga ka taagan xerada waayahan ajaaniibtu saldhigteen ee xalane dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay qorsheynayso in safiirada qaarkood dalka laga ceeriyo waxaana arrintan ay keentay kala shaki ka taagan xerada xalane oo wakiilada qaar ay diidan yihiin in ay wax xog ah bixiyaan cabsi ay qabaan awgeed waa tahay daawadayaal warbixinteennii waa naga intaas mahadsanidin